الرير كلامانو انشدنت وأوشدنت هاي حقيقة شدنت هاي أراد قيعنا أمجيدا زبطة ماشي كشدنت هاي انتي واي ورمانت متويتر كاي كشدنت هاي ورنقتك كلك وين مانشستر سنيتي كشانتي ورشدنانت هذا موقي بركنت هوسه بدكيغا soo bixi واشدنت هاد ما dhahdeen ay dabka hadeer la shidayo xowsay ninka hada budka qaada rabayo ku dakhra warmeeli kashidan ay taani siin sheegay shameerko ay dhagansada madeeyo yaa dameer leedahay oo ku dhagansaha hadana maalinta haweenka adduunka 8 Maarso hanolaato yalla erajiri geeka oo kale hayti waana 8 Maarso maalinta haweenka adduunka waaye marka shidanta madanisin la bilaantaan shidanta widaayay war haweenka maxaa u shidan guriga ay dabka shida jiraan iyo carruurtooda ayaba ka tageen war maalinta haweenka adduunka 8 Maarso waa halka maalin ay haweenka leeyihiin ha iska buraano ha iska siroobano ha iska baabashaalane kalaxda hooyoy la'aanta ashla macuunaaye ruuti habasheegine lelelelele war maalinta sanfaraha wariya farahnan ka heeso wariya war 8 Maarso waaba garanay waa maalinta haweenka maalintii ragga xageed ku sheegteen warniyo 8 Maarso lafteeda ayaa ragga looga maarmin inta kalena waaba u caddahay oo taasta suurka may ku qoranta war maalinta haweenka adduunka 8 Maarso oo la buunbuuniyay asalkeedu waxay ka timid wadamada reer galbeedka laakiin islaamku xuquuqta ka badan ayuu haweenka siiyay raggaana waardiye looga dhigay oo dumarkay ilaalshaan waa la galbiyaa hooyada xajka aadaysa waa inay wadato waardiye raga qiimo ka badan waxa islaamku siiyay lama sii karo dumarka war may leeray ha quraanka gorade ma buko agriisada waa ka wiin bilaanta aad waadiyo hayta walaad ka sheegayto ogolyiina he kiirasniina war waxa la yiri Soomaalidan abaabulan buuqiyo ololaha maalintay adkaataan ku arkaa fagaare maana iri islaamaha aqalkiina joogo u adeega odayada masaa'aya diinbay ku arkeen akhbaarta wareer kalmaan war ma haysaane Sheekh Shaakir waa booday hayahe hababooday intuu ka booday ama uu sajabay yamaska gaalkaayo miyuu ka booday oo xirada Sheekh Cabdiwali maas u boodina Sheekh Shaakir war boodista sida u fahanteen maahane tushow yiri warka naga dhageysta Sheekh Shaakir isagoo garow jooga wuxuu soo saaray warqad uu ku saxiixay madaxweynaha galmudug inuu yahay wixii hore barankii ahaayeen miyuu yiri aryaadaha ballanti waa ka baxo beentay cadleewaayo maymuun biyooba horay u tiri war waxa kale oo la yiri adduunyada waxa ugu shar badan sheekh siyaasiya shaxdan dagaba maad garan wayna kaashishaysa miyay mare sidan waa naqaana sidanna waan u garana hadday gacantu saan tahay sirbay irib ku leedahay nama jirto warwarka ay dhaxgelinine Sheekh Shaakir wuxuu kaloo yiri dagaalkii Dhuusamareeb ka dhacay waxa lagu xasuuqay dad shacab iyo culimo diinka ahlu sunna mid kale wuxuu yiri dawladda Turkiga ha ka taxadarto kaalmada ay siiso dawladda Soomaaliya ee waayadan loo isticmaalin lagula dagaalamo siyaasiyiinta ka aragti duwan dawladda hayahe Axmed Madoobe miya fariin qoraal ugu dirayo saas dheeyiri war madaxtooyadii garow miya mid kan laga furtay war Sheekh Shaakir waxa kaloo yiri qofkii gobolada dhexe loo adeegsaday culimo diinka ahlu sunna ee dadka shacabka ahaa hub sunna ayuu ahaa hay'adaha caalamigaana wuxuu ka codsaday inay baaritaan ku sameeyaan hubka war hub wuli yeel iskiridi jiray ha daawuna ma hayne shal adkaashada sunkuweelay aryaadaha nin halu ka maqan tahaan gorofow gacanta galshaaha la yiri oo wadaad hadalaasba guntigu u xirtimiyaa dagaal war ma aysiin waxa Muqdisho yimid wasiirkii arrimaha gudaha ee dalka Kenya Cabdirasiin muu keenay qaadka Kenya alla joojiyo dhibaato dadka ku hayay ara wasiirka Muqdisho ay yimaado Maxamed Axmed Madoobe mas wakiil ka yahayne war waan ugu waalateen wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Kenya wuxuu yiri waxaan Muqdisho u yimid sidii madaxweyne Farmaajo Uhuru Kenyatta ay wada hadli lahaayeen una dejin lahaayeen xaaladda ka taagan xuduudda aryaadaha idinkoon ku wareerin wasiirka arrimaha gudaha Kenya waxa la yiri وريري انت كوابحو وجهك كوارجيا وريري انيا كوابحو وجهك كوارجيا هيه وو تايانه هو تمكسان لكن ما هي او كدلي ما ليره كساسنا وريري انتي ولا هلا اسو وريريه ور wasiirka soo dhiibay waa wasiir ku-xigeenkii arrimaha gudaha Jubbaland ciidamada dawladda balad xawo jooguna isu dhiibay gudoomiye ku-xigeenka gobolka Gado hadlana wuxuu yiri wasiir ku-xigeenka waa soo
dhoweyn roolo waana geyni warnimaya war ma haysaane maanta wafdi ballaaran oo weyn ayaa dhuusamareeb gaaray abow wafdigu haba ballaaraade meeqa kiilow la ekaayaa tiri habarteeye aroobii baxdii beledweyne ma la ekaayna wafdigaas wareerkay qaylada iga dhaafe wafdiga waxaa ka mid ahayd senatar jawaahir axmed cilmi gudoomiyaha xoogaga wadaniyiinta iyo abwaanguuro oo la sheegay isaguba inuu xooga wadaniyiinta ku biiray waada leenaray guurigii fuudaadii dad hoogowna may dhexgeliyey war ku biiritaanka xooga wadaniyiinta qof walba waa istikhyaarkii war nimanyo waxaan idin su'aalay hadal aan gar ahayn haddii goobta la keeno dadku way isku gafaaye waxa guura u duulay gulwadeen cadmiya oo hadda waan guure ma guuro gareenuu noqde war dad waalnaa tihiine ninkii xooga wadaniyiinta diyaarad la raaca ka mid miyuu noqonaa warya walba mooshiidi sisindhatiya walaayka jiro sisinlayow waryaada waa iska buuqaysaane xoogga aan wadaniga ahaynu xaggee joogaa dalkeenna war waxaad doontaan sheega magacaad doontaanna la baxa cid xog meeshaan ku joogi kartaa ma jirto arooda war la yaab la'anaa idin haya ay dhegaysta haddaad arki jirteen shacab jidadka laga xirto maanta xildhibaanadiyaa jidadka laga xirtay haaho waxaa la yidhi geerida galbeed laga sheego gondahaaga ka fiiri haa walgadgadigii laga doontoley maahahe waxaa kaloo leehi xildhibaanow xaal qaado war waxaa la yidhi dhab war aan ahayn iyo ninkii dhagar ku sheekeeyey oo taa isaga dhiiradoon maalin qura dhaafin oo dhaar ku sii biirsadow dhug iyo manka war madaxweynihii hore ee soomaaliya cabdiqaasim salaad xasan wuxuu yidhi in xilligan dalka dagaal sukeeye uu ka dhaco waa nasiib xumo dhinacyada geedisku hayna waxaan ugu baaqayaa in dagaalkaasi si degdeg ay u joojiyeen ayuu yidhi dadkan la hadlayabaan lehen dur iyo iimaane bal inay dalfoof tahay caqliga dooni laga saaray wixii shalay digay bay degaysanaysaa yari abwaan suldaantima adda reer madawiine abdigaasin may baan sheegay dadku isla hadalo ay dhegama leh midda kale waxaa hore loo yidhi hadal waayeel haddii la yeeli lahay waxar dawaca ma cunteen war madaxweyne cabdiqaasim hadalkiisu dardaaran buu ahaa waxaana ka mid ahaa eray aan laga tegi karin wuxuu yidhi dembi aan gallay baanna haystee soomaaliyey ilaahay u laabta isna cafiya war ma haysaana cudurka koronafayrska adduunka ku fidayey waddamo badan oo caalamka ayuu gaaray haddana wuxuu aad ugu sii fidayaa talyaaniga iyo maraykanka dadkii laga helana waxaa ku jiraa layidhi 3 qofood oo soomaaliya hayaay ka soo kuday hayaay ma ihinoohe nimayo adduunyadu karoonay ka cabanaysaa ilaahay nooma keene annagana qaraxaanna rogay war waxaa la yidhi war dirkii soomaalaynu nahay duudi nebi aadan anaa kaa dadnimo fiican baa laysku dilayaaye maqaar baa dugaagtiya dhaleen qolo kaloo daahan maqaar baa dulloboo ka tegey diintii nebigeenna maxaa laysku dilayaa maxaa kiciyey duulaanka ma dalkaan khayraad iyo lahayn daawo iyo xoolo miyaan dahabku sheeddeenna ool waadna dilateen ha la dumiyo ha la dhiso haddana ha la dumiyo ha la dhiso ku soo jiri jirnay xaad sheegaysi war langilidili duugay maytaasi inkodorona abdulow dogdita geekontembati war hee dhahaya dulmi iyo fidniya damac iyo hawaa aadmiga dunsha aryaadhaha sida qurba joogtiyaad madaxa soo wada xiirateena xay taha beriga kuli gurguraad ah mana erkorta